cilad yar ay haysato waxaan rajeynaya ilaa idinkiis in cilada internetka ee hagaagi doonto ee waxaan leeyahay dhammaantiin soo dhawaada maqalka islaadi maqshaan waa saaxiibkii maxamuud carab oo idin habeen wanaagsan si walba aad daawanaysaan waxaan idin leeyahay waqtiga idin wacnaado cilad yar ay haysata oo internetka waxaan rajeynayaa inay hagaagi doonto laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo Axmed Xasan Aadan ku salaamay ogaaskeyga waxaan rabaa inaan ka hadlo odaygii daba casar ahaa iyo Ismaaciil ninka la yiraahdo Ismaaciil Dabare Elay hadda tii dheereed ku dhacday tii dheereed meeshan ogeyn in lagu kala horeeyo aaladan internetka la yiraahdo dadka way ku kala horeeyaan Soomaalidu waxay tiraahdaa cunuga markuu yar yahay naaska hooyadiis uu ku ciyaari karaa laakiin gabalkiisa wuxuu dhacay markii xaniyaha aabihiis uu ku dheelo kuma ciyaari karo Ismaaciil Elay niida daba casar saliida macsarada la marso abti macaan waxa la fiiri abtiyo macaan qabiil hal qabiil oo daarood la yiraahdo in uu dadka dhan caburiyo uu yiraahdo dadka aamusiina lama hadli karo lama sheegi karo wax lama sameyn karo waa la si baabiha waa la siyeela abti Soomaaliya way ka gudubtay maanta Soomaalidii ma aha xilligii Maxamed Siyaad Barre uu joogo dadka la caburi jiray ma aha Dabare arq itusa hal isbuuc Dabare Elayga oo leef soo galay arq itusa haduu ku soo noqdana sida daba casr oo kale waxa rabaa in halkaan aan ka bogaadiyo geesiye raga geesiyiinta ah geesiyiinta waxaan leeyahay waa dadaasheen wala guuleystay daba casr Facebook yaa laga xiray wooy Facebook lagu soo furtay 5 daqiiqo hawada muusan ku jirin waa la cunay Elaygi war maanta dhan Elay ogaadeen Elay sheegtadaan ka arkay maanta dhan hada ku digrisid arab daahir calasow meeqa arab idaa calasow laay kuwa adika weyn oo ka xaniyo weyn arab idaa calasow ku waashay عربي داير على سو ولن كن إمن كن صهرانة إمن كن هذيك عدة أشقيس يقبض إيشك كصاد درتي قبل أن دي تكبح هذا كصاد درتي أنا كنت طلبتهم أنا ما حاجة قاعد يرتاحي أكو قلت أنا تقولي دبرة أبتي هوية ده تجواي وأن كاجا هرينا تكنولوجيا تاني وحنا ولا كاجا هريا قبيل كلام آموسين كرو قبيل كلام آموسين كرو وان كاغا هورينا يوتيوب وان كاغا هورينا فيسبوك دبا عسرو دارود اي اديغا اي مريحانكا كدلتيبا وان كاغا هورينا صاحبك إلاي waxaan leeyahay sida daba casr oo kale saliida macsarada iska marsa abtiyo macaan yaa subaga marsa abtiyo macaan waliga waxaan idin leeyahay waryaada ogaada naaska hooyadiina ku dheeli kartaan qabiilada ka dhalateen لكن خبير كلا حنيس كم ديلي كرتان والله وبالله وتالله لديدي انت سبحان الله هي إلاويق نك إلاويق مختار رو درو الكيسة إذا بعثر أيد كتانجناته مع سكر على شاي موفو أي سومالي ترى هذا مع سكر على شاي موفو إذا الله يا صاحب دبا عسرو أبتي كوي صدري وأنا يعني أذيكنا وأنا إنسان إلا يوقن فيسبوك ولا قاعد وأنا المهاج أتوقسو قاب كل واحد رادي واحد كلا سماء إلا يوق لكن عرب الظاهر على سؤال كنت بسنة أبتي مع النبي ويكون كنت أنت أبتي أنت سبحان الله هاي دبا عثر إسماعيل إلا يوق ولا فليسية دبا رو ولا فليسية فيسبوك أركا دبا عثر إسماعيل إلاي وفيسبوك سوق لاي أركا مدة أسبوع يا بيت فديسية وحواي أيضا مركا أمرني مدة أسبوع يا فديسيين إنه سن فيسبوك سوق لين ما يلا ربوا ولا قاعد دقيقة دبا عصر مدة بلع يا أجرني مثل لو كسوق لي مركو سوق لي جنود دوك علي هي ولا قاعد فيسبوكي أبتي معان وقاعدة ألدان ولا وكله هريا وحصو برتا هوية ده تجواي تيجي أنا كإذا كهرينو فرماجي تيم كيسا إيش وحبنا كمان قاعد كنا وكأف كاني وحيد الله يا هراء الله سبحانه هراء إذا كدبوا سعد لكن مد الدين ترى إذا كهرينا أو إذا كبدنا واحد هاي ستان مرة ما ديجنا دم عصر إسماعيل إلهي وإذا كبدنا أنت سؤال الله بدأ ضد وحنا هي كسرية ما دي
يديني هل أتاك وحيري هل أتاك على الإنسان حين من الدهر آيات وإنه شيء مركز وحكسوا بلا هل أتاك على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هذا آيات دي أوجن بس وضد نوع عسى ده عصرنا لما كلام مصبر تعصر داير أويس يا صبر لما بدأ تقنع عصر داير أويس أو صبر ما أنا برا الهيد عصر داير أويس أو صبر مركي لما بدأ سنساس عليه مقدش أروح أنا أقوم هذا دارود مقدش وحي أبحيان نبض ينول فرماجي يتم كيس يبيش دارود حيرة المقدش فرماجي مركو قبصدي والنبض ينول بين باتشكتين مقدش وحد كدكتين عذيك فرماجو عبد الرزاق أبجدود إن اللي بحسن كتابت أياد حلال أمك عاوض مقدش وحد كدكتين مال قرنه مقدشو dadkeeda waa baabi'iseen hal ku dhiga reer muqdisho waa inaad dhaqangelisaan haddii farmaajo iyo tiimkiisa ay dhaqangeliyeen nabad iyo nolol muqdisho farmaajo maalintuu qabsaday ilaa maanta waxay ka dhigeen naxdin iyo nabar naxdin socota cabsi iyo nabar dhacaayo waxaa la yidhi shalay 4 gabdhood oo walaalaha lagu dilay qarax 4 gabdhood oo walaalaha oo kala dhiganayay iskuulada SYL iyo iftiin ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo إلهو نحريس جنسي قبل أي آيين ما مريحاني آيين ما واحد كلا آيين أفرت قبل ذي الوجود الماشي أمر قدير آيين ذاتك كلا ماشي نقول لا أبقى لي شغالة أبناين إلهي سبحانه وتعالى هو نحريسته وحاصلنا وحا مسؤولية ذا إسكالا فرماجي قبيل كيسة والله بالله طلع ما أنت آخر والودنا لما تلاقي جيس الإنسان قبلها اللي دلي هبر قدير وحا لك اللي يجري إفراح إيمان لما قبل ذا ولا لما كلام قاعد ولي ما نهل إفراح إيمان دادودو waxay kala ahayd 18 sano jir iyo 15 sano jir waxay kala dhiganayeen dugsiga sare ee SYL iftin ilaahay naxariisto janna ka waraabiyo ilaahay ha u naxariisto laakiin farmaajo hadaa tiri Soomaaliya waa nabad iyo nolol been baad sheegtay Soomaaliya xamar waxa ka dhigtay Puntland waa caadi Jubbaland waa caadi meel walba waa caadi laakiin xamar farmaajo waxa ka dhigtay meel geeri go'an ah muqdisho iftiinayso nalka ka baxay ma aha maanta muqdisho waa ku ciyaartay muqdisho farmaajo waxa gaarsiisay in dadka dhinta aad u tacsiyeen sida Axmed Cabdi Godan oo kala cod inaad soo duubtid farmaajo furuq dil farmaajo muqdisho waxa ka dhigtay nabar ii naxdin adigii Xasan Ali Khayre muqdisho waxaad ka dhigteen nabar ii naxdin muqdisho waad ku ciyaarteen muqdisho waxaad ka dhigteen meel baabaaday maalin ilaahay keenan in qabiilkaaga farmaajo magacaabaysa 5 agaasimo guud oo aad magacaawdo waa daarood 5 agaasimo guud farmaajo aad magacaawday waa 5 agaasimo guud oo daarood ah agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha guud ee wasaaradda bini'aadanimada agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka kulli daarood weeyaan farmaajo dulmiya ka shaqeynaysa farmaajo cadaalad darra ka shaqeynaysa farmaajo xamarti iftiinaysay iyo muqdishadii nuurka ka baxay goolaf waa ku salaamay iyo muqdishadii nuurka ka baxay waxa ka dhigtay nabar iyo naxdin maanta sidaad u joogtay Sakariye Ismaaciil Maxamuud Xirsi madaxii sirdoonka al-shabaab ayaad u magacaawday ninka ugu sareeyay nabad sugidda Soomaaliya hoog iyo ba ku dil farmaajo yahay Sakariye Ismaaciil Maxamuud Xirsi waa nin daarood oo sida oo mariixaan oo adig qabiilkaaga ah farmaajo intee u wada Soomaaliya farmaajo Soomaaliya ma waxa yeeshay qabiilka ka dhalatay daarood la yiraahdo arintaas waa qalad waa qadiyad qalad ah madaxweyne farmaajo Soomaaliya dhan waxa ka dhigtay meel daarood ay leeyihiin madaxweyne Soomaaliyeed namatiid ee nabadoon beesha daarooda tahay farmaajo wallahi oo billahi oo tallahi wa rabadaan 10 dambe lagu jiraay nabadoon beesha daarood ay leedahay tahay haddii shan agaasimo guud oo aan magacaawday ka dhigtay daarood oo madaxtooyadii dhan reer diini reer dawlad ka dhigtay agaasimihii guud ee nabad sugidda Sambalooshan ninka ii sheeg challenge-ga la oo Sambalooshan la siman aad samayso Sakariye Ismaaciil Maxamuud Xirsi oo mariixaan abtiyo macaan wadanka inta u wadaas aan ku weydiiyay farmaajo miyaad marka adiga aad ahayn nabadoon beesha daarood ah madiid madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed wallahi billahi tallahi farmaajo madaxweyne beerka arag goys kuma dhigi karo waxaan ku leeyahay dhigayso dambigaaga horta ilaahay beeshu ku dhaqay ma aqaan si fiican dhigayso farmaajo والله بالله تالله نبضون باشا دارود إلا ذا هاي متيد مدحوين أمد الصوماليين نبضون باشا دارود أو دي رقمات أيات هاي ورحاس الشيخ محمود شريف الشيخ أحمد عبد الله يوسف كورنيل كآية دكتاتر ويكح الشوجري وحاسمينيس إنا عبد الرزاق أف جدود أو بكارها اللي أجاسوه ومد وقول لا يجري أيات حصلين تي عاصمة السعوديين تأمني جد أمك عاد إنها كانت بوصاصي جروي
بوصاسي يقروي إنا عبد الرزاق أفجدود أيا وحد كنت بوصاسي يقروي وحنا عاوضي طليها حسرين تحمر محاك سوجرا قدومي دقمة عبد العزيز أيا وحكى لك تلمة جارتنا وزيردي وقومي سنة وحاسي سهرتي فرماجو مياد مركة هين نبضون باش الدارود ما تاي مسبد وينها ومد الصوماليين تاي كسماية عادي وحكى قايب قشة شركة بلوين تدارود أيا قايب قشة وحاد شبق اسكحي جيسي شعبكي مقدشو أيا شبق اسكحي جيسي فرماجو شعبكي مقدشو كوسا بنام بحي شبق أيا وحرتي كوبي كسمايو شاه يا لعبيس كافي بلوني يا لبيش مساجدها كل دوغنيس مو حاتهاي نبضون باش دارود اي لهدهاي اما فرماجو وحاتهاي مدحوينها امد الصوماليين marka waxaan ku leeyahay matid madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Puntland ayaa dagaal ka dhacay hadda laba ciidan is dagaalaya al-shabaab iyo ciidanka Puntland is dagaalay hore ka tacsiyay maadan u tacsiyeenin afarta gabdhood ee walaalaha ee lagu dilay hotelkii xal al-shabaab ay weerareen afar wiil shan wiilo adiga reerkaaga ay reerka farmaajo weeraray hotelka wiilasha meesha weeraray waa reerkaaga oo gabdhaha laayay bar ana hadda kule wallahi waa reerkaaga ku weeraray hotelka ku weeraray isku reeratiin farmaajo oo dilay afarta gabdhood ee walaalaha ay abargidir ceerka labada gabdhood iftiin iyo iimaan oo iskuulada SYL iftiin kala dhiganay iimaan iyo andrada ifraax iyo iimaan oo 18 sano jir 20 sano jir ah reerkaaga weeraray nimanka al-shabaab ay soo direen adag kula jofiyiin yarkii boosaas isku qarxiyay daacish ka tasnaa waa mariixaan madaxweyne marka wadanka inta u wadaa hadii agaasimayaasha guud daarood ka dhigtay agaasimayaasha guud inta hadda magacaawda hadii daarood ay yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka uu yahay nin harti ah wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh uu yahay nin harti ah wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga iyo maalgashiga iyo ganacsiga uu yahay nin harti ah Jamaal abtiyo macaan inta wadanka u wadaa haddii haddana agaasimihii guud ninka abgaal ka qaaday oo ka dhigtay nin daarood ah intee madaxweyne u wada madaxweyne ummadda Soomaaliyeed tahay mise madaxweyne qabiilkaaga tahay ma nabadoon daarood tahay mise waxa tahay madaxweyne Soomaaliya oo nin nabadoon ah ma tihid markaas waxaan leedahay ma joojiye waxba yaa laga hadlin aamus idaacadii xamar oo dhan lacag baa siisay laaluush baa siisay idaacad maanta xamar ku taalo hadli karta malaha saddex bilood oo lacag baad u qaybisay marko waxaad ka wadaa biimaalka hubeenaysaa shabeelada hoose oo waxa leedahay biimaal oo habar gadir ku duula ami Soomaaliyeed waxa tiri biimaal waa in la sharciyeeyo ciidankooda kuwa habar gadir laga soo saaraa iyo abgaal meesha jooga iyo sheeqaasha madaxweyne marka waxaad ka shaqeynaysaa haddaad tiri habar gadir abgaal iyo sheeqaal waa in laga soo saaraa shabeelada hoose biimaalna ay aadaan waxaad ka shaqeynaysaa nabadda ummadda Soomaaliyeed ama waxaad ka shaqeynaysaa in qabiilada Soomaaliyeed ay iska horkeento maxaad ka shaqeynaysaa farmaajo ii sheeg qabiilada ugu badan ee shabeelada hoose dega waa sheeqaal habar gadir abgaal biimaal gadaal loo geey waxaad ka shaqeynaysaa nabadda ummadda Soomaaliyeed ka shaqeynaysaa ama danta iyo xasilinta iyo nabadda beesha daarooda ka shaqeynaysaa maxaa ka shaqeynaysaa madaxweyne aan ku weydiiyay waa su'aale miyaad adiga aad ahayn qabyaaladiiste mid kale wasaaraha ka dhigtay wasiirada aad soo magacaabatay miyaysan ahayn qabyaaladiistayaal waa qabyaaladiistayaal qurun ah dawladii Soomaaliyeena waxaad ka dhigtay dawlad reer gaar ah ay leeyihiin saxna ma ah Facebook-yadii waxa samaysatay dad adiga ku hadlo soo celi media u bixisay lacagtii qaranka iyo lacagtii ummadda Soomaaliyeed waxaad ku bixinaysaa media ku bixinaysaa iyo propaganda sida Maxamed Siyaad Barre oo kale hadda koor qasa idin sheegaya Soomaaliyeed si fiican dhageysta farmaajo ummadda Ilaahay dhikar isqoru kurido adeerkiis waxa dhageystay ninka la xas cali qeyro dhahayo Soomaaliya qabiil waxa uma taro Yoweri Museveni ayaa aragnay Yoweri Museveni wuxuu weydiiyay yiri adiga rasaari farmaajo u soo dorto Soomaaliyeed markaasaan dheemaya rasaari ummadda Soomaaliyeed waa sax farmaajo ku soo dortay seediyaanu ku soo dortay ana hadda kula qeyro farmaajo rasaaraha wiima matalan matiin seediyaanu farmaajo ku keenay هذا رول مربطان والحناق يساد ولكن رول تلون شيء أنا سرت إيدي شيء جاي سيدي أهان أيوكو كان يوري مزفن وأجيا علبه international community جنا وإذا كهرة يعني إذا كصوماليا هل على الله صعدا ما لها دارات international community ما لها دارات international community أيك ما لها وحول بوال أجيا يوري مزفن محوك مركز وحيري إن صوماليا لما تني دور سنة أي أساس كجرت عندنا وحيري قيرة وحقيمد عمر حسن البشير وحي ويدي حد واي انا حد عاود يشي سفع لي دغيست waxa idin ka qancinaya hadalka qeyro Soomaaliya labaad kaar waa ku salaamay fadlan si shar gareey dhabaantiin ilaahay dartiis sida Ismaaciil Eelaay oo kale ilaahay dartiis u shar gareey ilaahay dartiis
إلهي درت سوكو عبادة سنة قيري فرماجو سيشر قرية إلهي درت سوشر قرية هذا الكي قيرة إلهي درت سوشر قرية ما حد يفير لسان إلهي درت سوشر قرية خيرة حد إسماعيل إلهي وكو عبادة سنة دار على سوي عرب أنا قلت وحن كو عبادة سنة إلهي درتس فرماجي قيرة إلهي درت سوشر قرية إلهي درتس سوشر قرية ها إلهي درت سوشر قرية وحما يدي شيء قاعد يجست خيرة هذا الكوي لا ذيك جاهل بحنايا خيرة وحيري صوماليا انت اصلا ويدق لا حتى اسمع الإلهي بالله درت وشر قري وداي دا على سوي محل قص لسان دا على سوي عرب سنه وداي انا قلنا waxaan ku cibaadaysanaya qeyray farmaajo ilaahay dirtu washar qaray farmaajo dulli kala jirin madaxweynaha imaa si shar qaray ilaahay dirtu waa rabadaan ilaahay dirtu waa cibaado ha si shar qaray waa cibaado ajra kaleesan ajr ana idii iftooday wallahi billahi tallahi inaad wax ka sheegtaan farmaajo iyo waxa la midka ah magac ilaahay ku dhaarna ajra kaleesan si shar qaray ilaahay dirtu biri wax ba idii sheegaa wuxuu yiri ninka la yiraahdo qeyre Soomaaliya 22 sano burbur uu ku soo gudu jiray dawlad ay ku sii dawlad la'aan ahayd Umar Xasan al-Bashir ay weydiiyay yiri Musafir inuu weydiiyay kama jawaabayo wuxuu kula Ilaahay inuu naqano waa sax waa in Ilaahay shariicadiisa iyo kitaabka Ilaahay uu naqanaa Soomaaliya meesh qaybta laga haystay kamid tahay waa in kitaabka Ilaahay uu naqanaa waa sax laakiin maxaa keenay 22 sano Soomaaliya inay burbur iyo colaad ay ku soo gudu jirtay qayr kama jawaabi karo baqa 22 sano Soomaaliya inay burbur ku soo gudu jirtay colaad waxa keentay إسأمين الآن وسميي محمد سياد بري أو فرماجة أديركيسا أنا رمت إيدي شيء جاي ورياض إسأمين الدرة سميي باش الدارود الله باتني قرصنا ودنك حكومة يسي أيا أصاب إن سخمالي إسأمين وياي غير كما هذا ذكره والله بلا ترى أسكاد ذكرين لكن رمت ربي أجعل أنا واقع الله يا international community قال له ويديو إن الله العدة ربته ويديه وحائد الله يا صوماليا إن أي دقي ويسو أو صلك اللي جن واسي محمد يا مسؤول كا هدير أنت السويديو وحام مسؤول كا محمد سياد بري محمد سياد بري أي مسؤول كا أوكي محمد سياد بري مو بحي لبعتري الأرسنال ودن كان حكومي وريا خبير كأركتنا مدلول لي هذا وأبقى مدلول ولي يودي الله أنتم محمد سياد بري جوجي فهو فرماجة عذير واه أنتم جوجي هل سفير ما سيالا سفير عربت عيسى الإيراني جوجي جري بس ظلمي عدالة الرذا كوين أو محمد سياد برا وسميه محيطه واحد ماشي عن الدقي أو إن لس آمنوا ويا كاني محمد سياد برا أو فرماجة أديركيسة أيوها خير أساس وما هذا ذكره مش يكره لكن عمر حسن على بشير يوري مسفن يسوء شو ودي وأوجين أوكي ولا جسوا قد بي دولة لا رسول يسأل ما هذه عيديد ببا وايد ما عبد القاسم يمين هذه ودنك أمة ملا إنها برا كذيرة عبد الله يوسف يمين برفيري محل اسمه آمنة اسمه آمن كره عبد الله يوسف يمين محوس مي عبد الله يوسف عبد الله يوسف حسين اللي وديناه سوقي بكاروه وقدر أندريه بيئا وربكاره وجنعسي علي محمد قد شبه اسكيري بكاريه على الدقي نور عدا يمين يا أحمد عبد السلامي نور عدا أبقال يا أحمد عبد السلامي أي مادين أفكر عيد الله عبد الله يوسف بكاريه ودقيه إن اللي بحسن كتابته نوكان وعنوكان بيكسوكي هذا إلهي إذا كل دارس واحد يدي شيء من بنتها مسورنتي إسآمنات دراجته ورما بإسآمني كرامة سيرسكو آمنات أوكي سفع عيدك سيشر قراء الله يا ورياض فيري عبد الله يوسف أصلا قبيلة الدارات كذا شيء وحو سميه ظلمي عدالة ضره ضمن يردي على الحرحري ودياشي على الحرحري ضدكي على الله بكاري أفر الله تكسب الأفير لو قراعي وروحان أسو جوجنا فيري حتى دارات وعبد الله يوسف لا ونحن بينك شيء ما من دارات بوها دارات رنت الله شيء مرة من دارات بو عبد الله يوسف وحو سميه وروحان أسو جوجي توفيق هاي اللووي الدنك أي كل هذا اللي قدروا عدماء إثيوبيا كدرين عبد الله يوسف أنا كدم بيه وحول ناكينه إن اللي بحسن كتابته ديك سكية لابجع إن هيلب عنا اللي بحسن كتابته وناكينه عبد الله يوسف هذا خيره ساس ومش يكرم ما نيكره غير كبله ما نيكره وروح صوماليا ماشان جارسية وهر كان جارسية ودارات وحي سمايين يكلسون الدر محمد سياد بري عبد الله يوسف لقى قاعد ما نيكره غير نبقى يواي هذا إسلام مريحان وقبا غير سمو وجدين أصل كيسنا وامريحان ودارودا أو مرصاد شيكت ها رنت مربطان رنت ربي أجعل لكن سوماليا مركا هير كان وحاجة جارسية دارود أو عبد الله يوسف ينك اللي رادو محمد سياد أوكي كذب محل صدر شيخ شريف سعادي ودنكم مامولاي وحال عناي نقالها دكد حمر وحال عناي إيشك هنتذا شباب هذا هو شباب هذا حال عناي أنتوا شيخ شريف جوون أبقاله أو مدلوده أو هوية وبحي حشر محمود على الدورت وحال عناي إسلا دكتة مقدشة على بارك مقدشة العناي مد جرو وحبل لك مكينين
بورمي اسكراف برعا اسكراف بورمي ارجيسي اسكراف وابا قوناي دهين لكن دقد بوصاص waxba laga ma keenin jirin midda kismaayeen waxba laga ma keenin waligeed intuu xashaq maxamuud joogay wax laga keenay ma jirto wala fiirsanay harti oo Puntland daga 500 bixinay dhaheen xashaq maxamuud intuu joogo waxay dhaayeen hawiye waa qabyaaladiiste xasan sheekh waa qabyaaladiiste sheekh shariif waa qabyaaladiiste ilaahay nabi maxamed untaan ku dhaartay inaysan xasan iyo sheekh shariif aysan qabyaaladiiste ahayn qabiil koode u darnaayeen xasanna wuxuu u darnaa hawiye iyo mudloodku ka dhashay abgal sheekh shariifna wuxuu u darnaa hawiye iyo mudlood iyo abgalku u dhashay sheekh shariif abaroonaayo qabiil liila shaqal degmo ka sii xamar walahi baydii sheegeen xashaq inuu diido badamacayba hadda qabyaaladiista ma ahayn labada nin waxay ka ordi jireen qabiilka ka ordi jireen hadda fiiriya in dadka ay kala nasabsiina idin sheegaya xashaq maxamuud wuxuu ku haystay malaha daarood sheekh shariifna wuxuu daarood ku haystay oo lacag ama hanti ama mansaba ma jirin madaxweyne ummadda Soomaaliyeed loo doortay waxa loo doortay wuxuu ka rabay ma jirin hanti gaar oo ay sii jireen ma jirin ayadoo saas ay tahay ayaa xamar ayaa xildhibaanadooda lacag laga sii jiray xamar ayaa lacag laga sii jiray okay farmaajo yimid hadda farmaajo maxaan ku aaminaa ma ii sheegi kartaan fiiri waxa la gaalka dil gartiisna sii war aniga idil bal garci adi farmaajo maxaan ku aamini karnaa wasiiradii uu magacaabay ra'iisul wasaarihi uu soo magacaabay seedinimo ku soo magacaabay macnaha qayro wuxuu qabaa iga dhaaf gabadha mursada farmaajo uu qabaa iga dhaaf qayro uu qabaa gabar mariixaan uu qabaa wasiiru magacaabay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka wuxuu sii daarood wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga iyo maalgashiga wuxuu sii daarood wasiirka dastuurka wuxuu sii daarood ka soo tag abaanduuli ciidanka nin habar giro sacad ka qaaday nin mariixaan uu dhiibay shan agaasimo guud oo wasaaradu magacaabo daarood uu dhiibay madaxtooyada wixii abgaal iyo shiiqaal iyo habar giro iyo dubli iyo wixii jooga gaal jacayl baa hadda waa laga saaray degada muqdisho wuxuu sameeyay laba nin oo saddex nin oo harti ayuu sii fiiriya cadaalad darada intii sheegaya gaal jacayl hal xubin ka siiyay waligood lahayn gaal jacayl hal xubin ka siiyay murusade saddex xubin uu siiyay murusade saddex xubinood uu siiyay xawaale laba uu siiyay okay mudulad laba uu siiyay habar gidir iyo shiiqaal iyo jinni asheegin reer xasan uu siiyay harti oo Puntland dago daarood ah saddex xubnood uu siiyay fiiriya murusada iyo harti degada xamar u sameeyeen yihiin mudulad way ka hooseeyaan laba xubnood ay leeyihiin habar gidir iyo shiiqaal iyo warkooda asheegin hadda way maxal isku aamina in aad riyaalo gaclay aaminaada Soomaaliya is aamini karto oo hadda qabiilkan farmaajo ay keeni karaan maxay tahay wuxuu meel ku soo qortay nabad iyo nolol waan bedelnay si fiican dhageystaa wiye iyo Soomaalida kale farmaajo ka soo horjeeda dir iyo degil imrif iyo baasha la hadlaya hadii daarad ay yiraahdeen nabad iyo nolol muqdisho wuxuu farmaajo ka dhigay naxdin iyo nabar dawladda farmaajo waxa la yiraahdaa naxdin iyo nabar war dawladnimada Soomaaliya la sheego aniga hadda ay idin hadlayo wallahi billahi taala waxba kuma leeyahay hal wasiir dawlad xun alaysi hal agaasimo mali hal taliye mali hal degmo mali waan ka oriyada wax meedii sheegaa xamar ana xamar ku dhasho aabay ku dhasho oo ida ay ku dhalatay iyo waxa u siman nin harti ah oo bajarteena oo Ali Suleymaan oo Puntland laga soo cirsaday waa u siman xamar degmo Cabdi Liilaa oo haystaa cadaalada midaasa duduble oo aad ogtiin hantida iyo dhaqaalaha koonfurta Soomaaliya in ay ka leeyihiin iyo harti Ali Suleymaan majarteen way u sameeyeen xamar hal degmo kala maamulaan hadda cadaalada aan noo sheegaysaan uurgaalow habar ceen uurgaale iyo mariixaan reer diin reer dalalow cadaalada noo sheegaysaan cadaaladaasa uurgaal la hadlaya mursada lama hadlaya aniga uurgaali waxa la hadlaya reer dalal la hadlaya oo reer diin kala shay reer dalal cadaalad darada aan noo sheegaysaan wiilka habar gidin iyo wiilka duduble iyo wiilka shiiqaal inay u sibnaadaan muqdisho iyo wiilka ma jarteen cadaalada taas ma cadaalada cadaalad ma ay sheega idinka idin wadi ma cadaalada lama rabo ogta wax la qariyo lama rabo runta la rabaa cadaalada aad sheegaysaan ma cadaalad noocaas ah macnaha ina fiiri duduble habar gidin shiiqaal murusade abgaal gaal jacel baad waliya gaal jacel iyo baad waxa xamar ka xigaa la yiri wiil harti oo ka yimid majarteena oo ka yimid Puntland iyo wiil bimaala ay ka xiga gaal jacel iyo baad iyo ujeejeen hal degmo malaha jajaale iska dhaafba baad iska dhaaf gaal jacel iska dhaaf waxa ka xigaa lagu yiri gaal jacel oo hawiye ah oo baad hawiye oo jajaalo hawiye ah oo ujeejeeno hawiye ah ya waxa xamar ka xiga majarteen iyo waxa ka xiga bimaal
cadaaladda farmaajo ma taas markaasuu qayre wuxuu ku leeyahay Yoweri Museveni iyo Uhuru Kenyatta waxay weydiiyeen maxaa Yoweri Museveni iyo Umar Xasan al-Bashir madaxweynaha Suudaan waxay weydiiyeen maxaa Soomaaliya loo heshiilaayay war waxa loo heshiilaayay cadaalad darro Maxamed Siyaad Barre uu sameeyay oo Cabdullaahi uu sameeyay oo farmaajo maanta uu sameeyay ay dadka isku aamin laayihiin waa is aamin laayahay qabiil kale uu aamin laayahay hawiye fiiriya hawiye waa diyaar wax walba diyaar leeyihiin dekada xamar in la cuno ee boorka la cuno waa diyaar laakiin farmaajo ogaadeenka kismaayo haysta waryaha gaal jecel iyo shiiqaal iyo nimanka la yiraahdo magaciis baajuun iyo oromale waa laga soo cirsaday kismaayo ogaadeena ka soo cirsaday dekada kismaayo iyo madda boosaaso farmaajo wax uu ka keeni laayahay maxaa marka la isku aaminaa dawladnimada see la isku aaminaa macnaha see la isku aaminaa mii sheegi kartaan sanbalowsha ku saare sanbalowsha xawaallah oo nabad sugidda loo dhiibay wax buula laga dhigay Sakariye Ismaaciil Maxamuud Xirsi oo madaxii sirdoonka al-Shabaab ahaa